guddiga doorashooyinka waddanka Gaana ayaa ku dhawaaqay natiijada codbixintii dhacday maalintii Jimcaha ee la soo dhaafay. guddiga ayaa sheegay in madaxweynaha hadda talada haya ee John Dramani Mahama iyo xisbigiisa National Democratic Congress NDC uu ku guuleystay wareegii koowaad ee doorashada waddankaasi. guddigu waxa intaasi ku daran in xisbiga madaxweyne Dramani ee NDC uu helay 50.7 codadkii la tiriyay halka ninkii la loolamayay ee Nana Akufo-Addo iyo xisbigiisa National Patriotic Party NPP ay heleen 47.7. musharaxa mucaaradka NPP ayaa sheegay inaysan ogolaanayn natiijada doorashada isla markaasna ku tilmaamay doorashada mid lagu shubtay. musharaxa mucaaradka Gaana Nana Akufo-Addo ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbigiisa inaysan la imaan rabshado ay kaga jawaabayaan natiijada doorashada. Mr. Nana Akufo-Addo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka NPP ayaa laga guuleystay doorashadii ugu dambeysay ee Gaana ka dhacday sanadkii 2008 waxaana lagaga guuleystay codad aad u yar. waxaana qaar ka mid ah taageerayaashiisu markaasi ay isugu soo bixeen dariiqyada iyagoo rabshado sameynaya. waxay xaaladdu degtay kadib markii Mr. Nana uu ku dhawaaqay una qirtay in looga guuleystay doorashada. taageerayaasha xisbiga Mr. Nana uu hogaamiyo ayaa hadda ku sugan qaybo muhiim oo ka mid ah caasimadda iyagoo sheegaya inaysan doorashadu u dhicin si xalaal ah. hase yeeshee xisbiga Nana Akufo-Addo ee National Patriotic Party ayaa sheegay inay hayaan cadeymo ku filan in doorashadu aysan u dhicin si cadaalad ah. waddanka Gaana oo ku yaala galbeedka qaaradda Afrika waxay ka mid tahay wadamada Afrika ugu horqaatay xorriyadda waxayna xorriyadda ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska bishii March sanadkii 1957. sidoo kale Gaana waxay ka mid tahay wadamada ugu degan qaaradda Afrika dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha wuxuuna waddankaasi sanadkii 2010 markii ugu horeysay bilaabay soo saaridda shidaalka oo wax weyn ka bedeshay kobaca dhaqaalaha waddanka Gaana. waddanka Gaana ayaa sidoo kale qani ku ah dhoofinna ku sameeya dahabka. shacabka reer Gaana oo tiradooda lagu qiyaaso 24 milyan ayaa la sheegay inay horumar weyn ka gaareen la dagaalanka faqriga iyo musuqmaasuqa la dagay qaaradda Afrika. Saciid Musa Daahir TV-ga Universal caasimadda waddanka Zambia Lusaka.